socda markala wadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijkan waanu imaan doonaa isku horimaadida culus ee xalay dhacay ilaa iyo saakay waa berigii dukun daakun ayaa la iska dhigay xiisada colaadeed ee bariga dhexena cirka ayay ku laaran tahay intaanu u imaan wararkaas waxaynu ku hormaraynaa xiisad dhanka diblomaasiyadda oo cusub ayaa ka dhex qaraxday Israa'iil iyo Colombia oo markii horeba si weyn dagaal afka iskugu hayay haddaba aynu eegno warkii ugu dambeeyay ee amuurtan madaxweynaha waddanka Colombia Gustavo Petro ayaa si kulul u dhaleeceeyay Israa'iil intii lagu jiray kulan uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo ku eedeeyay inay ka wadan waxa uu tilmaamay xasuuq isla markaasna uu barbar dhigay nidaamkii naasiyiintii Jarmalka Petro ayaa sheegay in 10,000 oo Falastiiniin ah lagu dilay jiida Gaza tan iyo markii uu bilowday dagaalka wuxuu xusay in weerarada Israa'iil ay saameeyeen shacabka rayidka ah oo ay ku jiraan caruur isagoo farta ku fiiqay in xaqiiqooyinkaasi aan la qarin karin sababo siyaasadeed ama dhaqaale awgood waxaan dib ugu laabanaynaa xilligii naasiyiinta ayuu yiri Petro isagoo ku dooday in beesha caalamku aysan ka aamusi karin dhibaatada ka jirta Gaza hadalka madaxweynaha Colombia ayaa dhaliyay in Israa'iil si degdeg ah uga falceliso wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar ayaa cambaareeyay hadalka Petro isagoo ku sifeeyay kuwa gaf ku ah xusuusta dadkii ku dhintay dhacdadii Holocaust sidoo kale ergeyga Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay Danny Danon ayaa sheegay in golaha ammaanka uusan ahayn wasi hadalka u dhigaya goob lagu faafiyo fikrada uu ku sifeeyay kuwa marin habaabina xiriirka Israa'iil iyo Colombia ayaa sii xumaaday tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii May 2024 ayaa Petro wuxuu ku dhawaaqay in dalkiisa uu jarayo xiriirka dhanka diblomaasiyadda ee Israa'iil isagoo ku eedeeyay Tel Aviv inay mas'uul ka tahay xadgudubyada ka dhanka shicibka Falastiin dowladda Colombia ayaa sidoo kale taageertay dadaallo dhanka qaanuunka oo caalami ah oo lagu baarayo eedeymaha la xiriira dambiyada dagaal iyo xasuuqa la sheegay inuu ka dhacay marayka Gaza wahagaag warkaas halkaas aynu kaga gudubno imika waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka dhex aloosan dagaalamayaasha ururka Xisbullah iyo ciidamada Israa'iil iyadoo lagu soo warramayo dagaalo culus inay socdaan isla markaasna weerarada ay isdhaafsanayaan labada dhinac ay kordhayaan ayaa militariga Israa'iil saakay waxay sheegeen in 2 gantaal oo laga soo tuuray dhanka Lubnaan ay ku dhaceen meel u dhow goob ay ku sugnaayeen ciidamada Israa'iil oo ka howlgalaya koonfurta Lubnaan iyadoo aan la sheegin waxa khasaaraha oo ka dhashay gantaaladaasi halka ku dhacay ciidanka Israa'iil ayaa waxay sheegeen in sidoo kale seeriga digniinta bixiya laga maqlay waqooyiga Israa'iil taasi oo ka dhalatay gantaaladan laga soo tuuray dhanka Lubnaan taliska difaaca gudaha Israa'iil ayaa shacabka ku nool deegaanada waqooyiga ugu baaqay in ay galaan goobaha gabaadka marka digniinta la soo saaro warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada Israa'iil ay fuliyeen weerar xagga cirka oo qaaday deegaanada Baalbek ee bariga Lubnaan oo qiyaastii 80 kilomitir u jira xadka Israa'iil dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Xisbullah wali uu sii socdo inkastoo dadaallada dhanka diblomaasiyadda oo lagu doonayo xabajoojin ay socdaan maalmihii la soo dhaafay weerar xagga cirka oo Israa'iil ka fulisay koonfurta Lubnaan ayaa sababay dhimasho iyo barakac hor leh halka Xisbullah ay sii wado weerarada gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsanayo ee lagu bartilmaameedsanayo ciidamada Israa'iil sida ay sheegeen ilal reer Lubnaan ah 10,000 oo qof ayaa ka qaxay deegaano ku yaala koonfurta waddanka iyadoo colaaduna ay sii fidayso
waxaana sare u qaaday walaaca laga qabo xasilooni darrada gobolka iyo dagaalku inuu noqdo mid faafa guud ahaan gobolka. waa hagaag waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladii xalay dhacay Mareykanka iyo duqeymihii uu geystay iyo Iiraan uga jawaabtay. saldhigyo military ayaa la beegsaday, qaarkoodna uuro iyo holac ayaa ka baxay. Iiraan waxay leedahay mid ka mid ah goobaha aan beegsanay waa saldhig ciidamada Mareykanku ay leeyihiin oo aynu dukun daakun ka dhignay, oo sida Iiraan ay leedahay diyaaradaha dagaalka casriga ah oo ay ka mid yihiin F-35 xootiga oo iyaguna war culus soo saaray. intaan u gudbin wararkaasi iyo sidoo kale war hadda soo dhacay aynu ku hakanno qadar xayeysiina. xalay waxaan idin soo gudbinay war degdeg ah saqdii dhexe kaas oo ku aadanaa Mareykanka oo duqeymo culus ku qaaday ilaa iyo 8 goobood oo ku yaala magaalooyinka waddanka Iiraan. waxaana la sheegay in la beegsaday xarumaha ciidamada raadaarada, goobaha lagu farsameeyo diyuuradaha droniska iyo sidoo kale xarumaha xasaasiga. xilligaas waxaan idin sheegnay Iiraan jawaab la'aan inaysan noqonayn. arrinta laakiin cajiibka waxay ahayd weerarkaasi markii Mareykanku ay fuliyeen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxaafadda la hadlay. wuxuu yiri Iiraan baa toos ula hadlay mas'uuliyiinteeda. waxay iga codsadeen buu yiri inaan ka joojiyo duqeynta, anna waa joojiyo duqeynta. su'aal baa marka dhalata arrintaas. waxaa la yiri haddii madaxweynaha Mareykanka Iiraan ay ka codsatay in duqeyntu ay joojiso, Iiraan jawaabi doontaa. laba nin oo qabiiraha marka baa ka hadlay. waxay yiraahdeen haddii telefoonkaasi uu jiro oo Iiraan ay codsatay in duqeynta laga joojiyo, Iiraan wax jawaab bixin mayso. laakiin haddii Iiraan ay soo jawaabto, madaxweynaha Mareykanka warkiisa waxba laga soo qaadi maayo. waliba nin ka mid ah wuxuu yiri waxaan hubaa buu yiri Iiraan inay jawaabi doonto. isla markiiba saacada kadib Iiraaniintu waxay bilaabeen inay weerar kala duwan ku qaadaan 3 wadan oo ku yaala khaliijka iyo sidoo kale waddanka laba wadan oo khaliijka ka tirsan iyo Jordan. haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee amuurtani. ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in weerar ballaaran lagu qaaday ku dhawaad 18 bartilmaameed oo kala duwan oo ku yaala gobolka, kuwaasi ay ku jiraan saldhigyo ku yaal Bahrain, Kuwait iyo Jordan. bayaanka ayaa lagu sheegay in saldhigga ciidamada cirka ee Al-Azraq ee ku yaala waddanka Jordan lagu weeraray 12 gantaal oo ah nooca balastiga, kuwaasi oo lala beegsaday diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee halkaasi yiil. waxaa la sheegay inay isku diyaarinayeen diyuuradahaasi howlgalla ka dhan ah Iiraan. diyaaradaha la beegsaday ayaa waxaa lagu sheegay inay yihiin F-15, F-16 iyo F-35. ciidanka IRGC ee Iiraan ayaa waxay sheegeen in tiro badan oo ka mid ah diyuuradahaasi dagaalka Mareykanka lagu burburiyey saldhigga military ee ku yaala dalka Jordan. sidoo kale bayaanka ayaa waxaa lagu xusay in la weeraray 2 saldhig oo Mareykanku uu ku leeyahay Kuwait iyo 1 saldhig oo ku yaala Bahrain. goobta ay ku sugan yihiin ciidamada badda Mareykanka ee taliska shanaad ayaa la sheegay inay ahayd mid ka mid ah bartilmaameedyada weerarada Iiraan. ciidamada IRGC waxay sheegeen in weeraradaasi ay geysteen khasaaro ballaaran iyadoo la adeegsaday sawaariikhda balastiga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa waxay kaloo sheegeen in weeraradan jawaab ay u ahaayeen duqeymo ciidamada Mareykanku ay ku qaadeen magaalooyin kala duwan oo ku yaala waddanka Iiraan. dhinaca kale taliyaha ciidamada cirka IRGC General Majid Musawi ayaa ka hadlay weeraradii ugu dambeeyey ee Mareykanka sida ay baahisay wakaaladda wararka Tasniim ee Iiraan laga leeyahay. ma waxaad ka dhiganaysaan marin biyoodka Hormuus mid ammaan aan ahayn? annaguna gobolka oo dhan ayaan jahannamo idinkugu bedeli doonaa annagoo ka jawaabayna dhammaan dhulka Iiraan, ayuu yiri Musawi. waxaa intaasi oo ku daray in tani ay tahay jawaabta geesinimada ah ee Mareykanka uu kala kulmaya gobolka. sidoo kale telefishinka dowladda Iiraan ayaa
kasoo xigtay sarkaal sare oo sheegaya in hadallada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan xiriir uu la sameeyay mas'uuliyiinta Iran inay yihiin sheegashooyin been abuur ah oo lagu talagalay in lagu daboolo fashilka dagaalka. Afhayeenka dowladda Iran ayaa dhankiisa isna wuxuu sheegay in qatar kasta oo lagu hayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada muhiimka ah ay si toos ah qatar ugu yihiin nolosha shicibka. Wuxuu sheegay in jawaabta Iran mar walba ay ku salaysnaan doonto cilmiga, dadaalka iyo midnimada qaran, isagoo xusay in dalka uu si ahaan doono mid xooggan isagoo ku tiirsan awoodda muwaadiniintiisa. Bahrain dhankeeda waxay ku dhawaaqday in nidaamyada difaaca cirka ay qabteen isla markaasna burburiyeen weerar xagga cirka oo Iran laga soo qaaday. La taliyaha warbaahinta ee boqortooyada Bahrain ayaa sheegay in wasaaradda ku dhigaya weeraradaasi lagu fashiliyay hawada. Hay'adda duulista hawada rayidka ah ee dalka Kuwait ayaa iyaduna ku dhawaaqday xiritaan kumeel gaar ah oo hawada waddankaasi, inkastoo goor dambe la furay. Waxaana la sheegay in tilabadaasi loo qaaday sababo la xiriira weerarada Iran. Hay'addu waxay sheegtay in duulimaadadii loo weeciyay garoomo kale isla markaasna hawada ay noqotay mid khatar ah. Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Xuutiyiinta ee waddanka Yemen ee caalamku aanu aqoonsanayn ayaa ka digtay in weerarada military ee Mareykanku ku hayo Iran ay horseedi karaan isku dhac goboleed oo ballaaran iyo cawaaqib dhaqaale oo saameeya adduunka oo idil. Bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in gardarrada Mareykanka ee ka dhanka Iran aysan gaari doonin ujeedooyinkii laga lahaa amaba laga leeyahay, isla markaasna aysan jabin doonin rabitaanka shicibka Iran. Waxaa sidoo kale lagu sheegay bayaanka in tillaabooyinka military ee ka dhanka Iran ay sii adkayn doonaan xaaladda istiraatiijiyadeed ee Mareykanka. Wasaaradda amuuraha dibadda ee Xuutiyiinta waxay ka digtay in sii socoshada weerarada ay khatar ku yihiin silsiladaha sahayda caalamka, ganacsiga caalamiga, suuqyada shidaalka iyo tamarta, isla markaasna ay halis gelinayaan xasiloonida dhaqaalaha dunida. Warwarkaasi u dhow, qiimaha shidaalka ayaa sare u kacay in ka badan $2 halkii fuusto kadib markii Iran ay ku dhawaaqday inay xirayso marin biyoodka Hormuz oo ah marin muhiim u ah sahayda caalamka isaga kala gudbaysa gaar ahaan shidaalka. Shidaalka qayriin ayaa fuustadii waxay sare u kacday $2.47, waxaana imika ay gaartay $95.40 halkii fuusto. Waxaana lagu soo waramayaa tan inay ka macno tahay xaaladda dagaalka iyo go'aanka ka soo baxay Iran ee la xiriira inuu xiran yahay marinka Hormuz.